watahay daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni kaftanka Somali News TV oo idinkaga imaanaya bartamaha magaalada Hargeysa barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Sagal Guura sidoo kale waxaanu toos u tagi doonaa dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa amaba kuwa waaweyn waa dhalinyaro yar yar iyo dhalinyaradii islaatay labadaba way isugu jiraan si toos ah ayaanu ugu tagi doonaa waxaananu weydiin doonaa su'aal إذن قنعد دونتا كدبنا وينو يسكو سو نقون دونا لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال adigoo magacaaga ku bilaabaya xillimaad shukaansiga bilow magacaygu waa Cabdikariin Axmed Maxamuud horta shukaansiga dadku iska wadin maaho dadka qaar iyagoo 20 jir ku dhaca oo ay bilaabaan shukaansiga laakiin aniga waxaan oran karaa anigoo yar baan bilaabay xilma ayaad bilowday shukaansiga ama si reer waqooyigu yaqaanaan sheekada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Idris Maxamuud Cabdi su'aasha ka jawaabo aan waxaan oran karaa wiiga dahay marka ka baxay dugsi sare ilaa jaamacadan soo gaaray adigoo magacaaga ku bilaabay xilma ayaad sheekada bilowday ama ba shukaansiga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Tawfiiq Maxamed ama shukaansiga waxaan bilaabay oo markaa yaraaba alkood isku xooganayno waxaan ay dadka waraaqa qori jiray macal kuwa galaaska oo qori jiro miisaska hoostooda u gali jiray inaad ka helo kala de marka amiga adu kii wuxuu galaatay 16 kii u dhacay xilma ayaad shukaansiga bilowday magacaygu waa Xasan Jaamac Koosaar aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka Sagal Guura ay wado waxaan oran karaa shukaansigaygu wuxuu la abqaalay xilligan Iskandariga bilaabay adigoo magacaaga ku bilaabaya xilma ayaad shukaansiga bilowday si marka lagu eegana aad baad u daayirtaa أنا أرتم مقعي جاي عبد الرحمن يوسف بشير أنا شو كان سكون بلعب هذان كهلا تكسي كده حيان بلعب إلا سمن كيجي مالهاس adigoo magacaaga ku bilaabaya xilma ayaad shukaansiga bilowday ama ba sheekada bismillaahir rahmaanir rahiim horta magacaygu waa Cabdi Saaqir Axmed wallahi hadradan taariikh ahaan dib u baaro kulli qofka marba wax xilli la soo madhaayo waqtigan shukaansiga bilaabay waxaan u maleynayaa anoo yar bay ahayd Maryan Mursal Ciise xilma ayaad xasaawaha bilowday ama ba shukaansiga والله إيدي ما حسوسته والله هدرت كودة إني سديد يوتيوب شركة أهيد إني لبعتين شركة أهيد والله وقت قاسوي يكون أوران كارو إلا لون تايم بكسو بريكتي لكن كل سديد يوتيوب شركة تدوي يوتيوب شركة لاتين شركة أهيد ها هي ساسا أماليني هاي adigoo magacaaga ku bilaabaya xilma ayaad shukaansiga bilowday ama ba sheekada waxa la yaab horta ugu horeysa jacayl aan bilaabay horta baadiyan joog baadiyahana waqtigu hadda daadan horta waa san ma aqoonin oo guwan tirsan jirin hadii laakiin aan cabiro gaarka 2000 iyo waxay ahayd 2004 milaas ahayd waan filayaa mii baan joogay moogta marka maalin baan geel soo doona gooraan geel gooyay waxaan ina yiro ari la joogto u imaado barqadii goor ay tahay oo 10 meel tahay yaan u imaado wadka qaar 4 saac u yaqaana maalinaba baan u imaado ari la joogto kadibtana gabadhii waan u bogayo فريدة ممكن صراحة أي مكان سهست أي قلة صراحة مير ولا حس يا موقت قبلها أرجع وايد أرجع نهاي بالك كده مكان سقيلة بورصح ولا حس يا موقت قبل ديوان إماضي وأنا لا شك وحكى لي جاد هالكيوان بركة أم بقاضي ويفهم ويسكر مية هيدا حوا بركة وبيع عيضة هذا أنت وحسيد تعال بناه تعال هيا أنا قبل مركب تعال شقي موقت مركب وين سيرات كيست اللي عنده حتى لو صطف كم حتى لو صطورة ويا بقول عي هذا قبل إسفهن مقدم بهمينكي يا بالله waa guri baadiye ah guriga baadiye ardaa uu leeyahay ardaagaas odafo baa lagu soo jiiday moogta inta markay in door isku jirnaayo buur baan labada gas labada dhinac ka kalana markaasan habeenkii soo aado gooraan buurta soo deganayo baa waxay qeynay bahal yiraahdo hangarale ama daba qallooc kulba dadka si yaqaana bay qeynay baalka markii uu qeynay aniga de bahalkii oo dhugtanayo lugtii de qanjira xataa xanuunaya oo dhugtanayo haddana inta iskama deynay jacayl hayaa ahay ban si aad gabadhii baan u tagayo gabadhii gooraan la sheekaysanayo gabadh isoo fariisatay aan la sheekaysanayo yaa odayga aabaha nagu toos maxaa ka dhacay dhabigoy tooreydoy ayradoy kabii xitaa waan ka cararay baan ku leeyahay niyo kabii
waan ka carar ilaahay iga sareeyo been ku sheegmay gabadha iga carar marka jacaylkaas markaas iga bilow bartaas ka 2004 ba adiga sheekaad bilowda kugu midaysay waayahaas aan u malaynayo agagaarka macnihi markaan qiyaaso naasad ma naqo waa mooto gubantisan laakiin gugaas haddaan fiiriyo wuxuu ahaa waxa la oran jiray sirqdi wala oran jiray sirq bal oran jiray waxa waqti waxa abaar xun dhacday oo haddana migraansa xoolihii iyo dadkii iyo migraansa la hayaamay oo meel kale loo guray oo geedi la galay bay ahayd marka waagaas ahayd shukaansiga bilowday amaba hasaawaha say Soomaalidu hadalla waxa u yaqaanaan dhowr nooc bay yaqaan ano ka shukaansiga haddaan ka hadlo nin weyn baan aho waxaan bilaabay 2003 adiga magacaaga ku bilaabaya xilli ma ayaad shukaansiga bilowday bismillaah magacaygu waa Cabdinaasir Muulid Allahumma salli ala Muhammad waxaan bilaabay 2010 adiga magacaaga ku bilaabaya xilli ma ayaad shukaansiga bilowday amaba sheekada waxa loo yaqaan aniga magacaygu Cabbaas Ibrahim Maxamuud shukaansiga hasaawaha waxaan bilaabay 2009 xilli ma ayaad shukaansiga bilowday amaba sheekada wallaahi run ahaantii anigu maba sheekaystaba wax shukaansiga ma aqaano maxaa dhacay waayo dee levelka aan taaganahay ayaa muhiim ah inaan sheekaysanba xilli ma ayaad shukaansiga bilowday amaba sheekada shukaansiga ilaa maanta khaliyay waan shukaastanay xilli ma ayaa shukaansi kuugu horeysay ama aad bilowday magacaygu horta waa Cali Cabdiraxmaan Jaan waxaan ahay dadkii magaalada Hargeysa ku dhashay markaa imka xaaskii labaad baan hayaa kii hore wuxuu ahaa daadeeduna waxa weeyaan 74 jir kii hore waxaan bilaabay 28 adiga magacaaga ku bilaabaya xilli ma ayaad shukaansiga bilowday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أنا مقعي واحد أحمد عبد الله أحمد shukaansiga dee markii aan guursadaan bilaabay anigu adiga magacaaga ku bilaabaya xilli ma ayaad shukaansiga bilowday anigu magac Cabdullaahi Axmed Faarax baa leeyahay magacayga kolley shukaansiga waxaan bilaabay ilaa 91kii markii ay ahayd ayaan meelahaasaan bilaabay adiga magacaaga ku bilaabaya xilli ma ayaad shukaansiga bilowday kuugu horeysay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Hibe Cali Yuusuf waxaan bilaabay adigu 2013 وهجاك داوديال ولي وحين كل حجرنا برنامج كأني كفتنك سومالي نيوز ويدين كجاي منايا برتمها مجال هرجيسة برنامجكو وكحيس بدني هاي برنامج شدي هراء إنه هو دي سكوير كتيرني طبعا وحنا لا شوكتا أو ماتا برنامج كانوا مرتيا فناندي عنك أهيد الصوماليات وتوما مريم مرسل عيسى وطبعا قرب كيغا فردة إن هران دين كل شيء أو وحنا دلري برنامجكو كحيس بدني برنامج شدي هراء طبعا مركز مريم أردتم وحياة بدن بعد حسوسان إنسان إن مريم عاديات بكوسو دوينيا ماما مر لبعض يمرصد حد بكوسو دوينيا وحنا كلها هاي كل مجال هرجيسة ديك وجمسو دوينيا ومجال هذه لكن وحنا كلها هاي تلفزيون كسومال نيوز يكفتن كا إن برنامج كن كبح كفتن كبا ونكوسو دوينيا كل دوائد وما هتصنت هاي إن مريم ugu horeyn kulay hargeysi waa magaaladaadii waxaan u maleynayaa maanta inaan dee lagu soo dhaweynayeen hadii lagu soo dhaweynaa ay iska sharafnaa tahay laakiin magaalada ay magaaladaadii tahay in bal hargeysa waayo horena waa timi in imikana waad ku soo laabatay in markaa bal waxaad iga warantaa hargeysa waxaad kula kulantay waxyaabihii hore ee maanta farqiga u dhaxeeya markii hore iyo maanta markaad ku soo laabatay wallaahi waagi anigu hargeysa aan imaan jiray oo hore hotelka VIP da oo 5 stars ka waxa ahaan jiray hotelka Maxamed Cabdi ayaa ahaan jiray Oriental Hotel maanta inta laakiin waxaan arkay magaalo aad Ameerika u maleynaysa daaraha ku samaysan iyo adduunka ku waxaysan oo cajaa'ib ah ma sha Allah aad baan ugu farxay oo macnaha awal in yar oo hargeysa centerka ku taalay ahayd maanta inta maaragtay ilma inta isku leekaatay inta kilomitir oo gaadhay waxyaab lay noqotay aad baan ugu farxay anigii xataa hadaan damcayaan ku soo socday inaan soo wareego meel aanan gaari karin bay noqotay oo aanan lugu tagi karinin
marka maasha Allah aad baan ugu farxayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa intaas ilaahay inuu uga sii siyaadiyo marka waa u bogay maanta Hargeysa sida uu xataa woodkii u dhacay iyo nabadgelyada iyo ammaanka uu ku dhamaaday aad baan ugu farxay maasha Allah inaan ka soo qayb galaan rabo in ogaado bal sida situationku u dhacayo laakiin si farxad la ayuu u dhacay maasha Allah way macaan maasha Allah Maryan maadaama tahay qof qurba jooga fanaanad weyn oo Soomaaliyeed la wada garanaya Hargeysana maanta aad aragtay si isku bedeshay qurbahana dadku markay weynaadaan way iska nacaan Maryan in badan baad ku celcelisay anigu imka fanaanad weynaatay baan noqday waxyaabahaas oo kale marka inna ma danaynaysa inaad magaalada Hargeysa u soo guurto wallahi waa sida hadda aanu imid inaan dhul baan ku lahaa dhulkayga inaan dhisto inaan meeshan beeshinkayga ku qaato waa wixii aanu imid hadda waqti bay iga qaadato 20 bari baan joogaa waxa waa dhisi lahaa 20 bari hadaan horay dhulkayga u heli lahaa marka waxaanu imid inaan xaafado kamida meeshan ku noolaado oo aan dego baanu imid oo beeshinkayga ku qaato waa sax ma sha Allah Maryan madabad fanaanad weyn ilaahay baa weyn oo caana tahay fankeeda la jeclaa imikana la jecel yahay kulay de oran mayna maanta dadka Maryan waanu idin baraynaa laakiin waxaanu leenahay waanu idin xasuusinaynaa Maryan Mursal Maryan Mursal heesahaagii hore hadda kuwii dambe ma waa kuwii hore kuwee baad ugu jeclayd ama ma jirta hees si gaar ah ku dabadaad ugu jeceshahay way jirtay waa ku daalay raadiskaagi ayaan ugu jeclaayay Allah halkan abay igu qoran tahay aniga qudhaydu mararka qaar isirahada ku dhawaaq waxa baan isirahada talo Maryan malaha waabad ag dhigi lahayd bacad waa oga teenage kii noodhan heestaasad jeceshay meel kasta markaan tago waa iga dalbatiin waa waagi aniga teenage-kayga marka isku fikradaan u ahayn markaas laakiin hadda isku fikrada manii laakiin waagaasaan aan jirnay aad iyo aad iga daaro kurgashada heesta la yiraahdo bal in yar hadii aad daawadayaasha maqashiso in heesta inayo ruuliyo orod ku raadshay adige inka walba inayo ruuliyo orod kugu raadshay adigo rugta aad ku nooshahay muddo badan ku riiqmo riciraad jabisay waa ku daalay raadiskaagi qalbigii ku raacaa reesan waaye awga iga daaro kurgashada ma sha Allah waqtiga hadda taagan weeye Maryan heestaasi marka maxay ka turjumaysaa ma inaan daba ordayso macnaha jacayl ba maxay tahay heesto macnaha de wiilkii oo ay gabadhii u sheegaysa in ma aragtay rag iyo dumar Ilaahay isku uumay marka ay leedahay ay isku kay badbedeli ninkii uu maalina oo san 10 bari soo agmareynin marna uu habeen walba la joogayo markay weeday leedahay iga daaro kurgashada aad nuuc iska dhigaysid waa tahay marka adigu arrimahaas ku saabsan tahay dhalinyaranimada alla la wax cajiib anigu jaceylkii aan ku jeclaabaan ka reesan waayay ma garata iga daaro kurgashada jaceylku Maryan bal horta kan jacayla dibtiisi baa fara badatay bal kan jacayla bal wax nooga yarata maxaan ka taabtaa jaceylka Ilaahay baa rag iyo dumar isku sameeyay Ilaahay baa raxmadda isku galiyay inay isjeclaadaan Ilaahay baa isku galiyay marka labana waa kale helaysa inta isjeclaadaan bay isku hursanayaan labana qof baad jeclaanaysa isagoo aan ku jeclaanin markaas ba kugu cayaaraya adduunka oo dhan baa saas ku dhisan Allah waa siday tahay marka Ilaahay waxa looga duceystaa oo mid anna aan jeclaa isna jecel Ilaahay inuu siiyo ayaa lagu duceystaa alla la wasila aadi Maryan ahaan adiga horta maxaa ka qosliye Maryan wallahi aniga waxyaalo badan baa iga qosliye hadda waliba dhalinyarada hadda joogta waxa iga qosliye wiil iyo gabar baa caawiyay is arkaya markaas buu wiilku wuxuu leeyahay gabadhi waan ku jecelahay markaas bay waxay I love you buu leeyahay markaas bay waxay la soo boodaysaa me too arrimahaas oo kaleeto ayaa iga qosliya waxa waaye gabdhaheena dhaqan baan lahaan jirnay wiilkiyo gabadhu markay 3 sano wada socdaan ayuu habeenka dambe ku dhiijir waan ku jecelahay markaas bay gabadhu xishoon jir dhamaanahay jecesha la ilaaha illallah muhammad gacantay saas dhiijin laakiin gabdho soo taagan oo ninkii saa indhaha inta u fiirinaya miituu la soo boodaya wax ajiib ah ahayd Maryan waxay idin tiri miituda iska daaya ragga isku macneeyo isdhis oo naaga iska soo saaray laakiin miitu hadaad la soo boodo wax dhimatay baa tahay gabigaagu alla leh Maryan taas qosolkii bay ahayd maanta waxaan jecelnahay maadaama Maryan idinla joogto oo barnaamijka inoogu casuuman tahay inaad intaad qosli jirteen in ka badan aad qososhaan sababta waxa weeyaan fanaanadeeni baa halkan inala joogta Maryan qosolkii baynu mareynay waxaynu u soo noqonaynaa waxyaabaha ka farxiya markaad aragto
waxyaalaha iga farxiya markaan arko waxa weeye waxyaalaha iga farxiya markaan arko gabar yar oo hooyadeed la joogto oo lugaha u tuujinaysa oo ay habartii waayeel tahay oo u soo adeegaysa oo halkaas ku og oo maxaa la yidhaahaa macnaha dhinacii waalidnimada iyo ixtiraamkiisa taqaana oo diinteeda haysata oo maxaa la yidhaahaa qur-aankeeda oo xijaaban oo qur-aankeeda akhrisanaysa taasaa iigu farxad badan dadka aan arko taasaa iila farxad badan gabadhaasaa aniga iila farxad badan aynu halkaa kaga soo noqono waxaa jirta hees la yidhaahdo soomaali u diid ceeb runtii heestaa markaan maqlo anigu dareenkaygu u isbedelaa heesta haddaad mar iyo laba inooga taabatiyo macnihii heestaasi aad ku qaadeen wallaahi heestaas 30 sano hadda sii maraysaa wixii aan ka hadlayana maanta la wada hayaa Soomaali oo burburtay midaba qaybba meel raacday maxaa la yiraahaa adduunkii oo dhan la yaaban yahay sida aan annagu iskugu soo jeedno aanan ajnabiga ugu jeedinin marka waxaan lahaa macnaha haddii Soomaali ay ceebaysan tahay adiguna waa caayan tahay ma garata marka macnaha Soomaali ceebta ka ilaalisa adiguna aad sharaf u yeelatid ilaa hadeerna 30 sano sii maraysaayo waa la sii kala firdhanayaa maahay wax isku soo socda ma jiraan marka wallaahi aniga laftigayga caloosho iga xanuuntaa heestaaseetood wixii aniga aan sheegay oo dhan baa maanta wada taagan laakiin ma maqlayaan Soomaali marka wallaahi ma jecel xataa inay xasuusisid hadeerta heestaas waan ka sii kaga gudbaynaa taas waxay tiri ka rogo hadana saar xagga jacaylka ayaynu u baydhanaa waxa jirta hees la yiraahdo aad adigu leedahay la yiraahdo jacayl dhiiran oo kulul miya jacayl dhiiran oo kulul baa iga yimid dhankaago iga dhigay midaan dhimana nooleen alla leeyahay aad iyo aad maryanay heestaas waa hees cajiiba waa hees qiimo leh waa hees qof wal oo dareen laba qalbigiisa maxay ruuxaysa daawadayaashaada ku jecel ee Soomaalida ee fanka Maryan Mursal mar walba jecel ee xiiseeya ee u taagan ilaa Maryan maalinta iyadoo yar ay fanka bilowday ilaa maanta inta leegtahay bal heesta hadii aad ugu yara luuqayso macnaha wallaahi aniga erayadeeda hadeertu waa hurdaysanahay idinka saaki salaada albaabka igu soo jafay marka qofkuna fanaanku marka uu hurdaysan yahay maxaa la yiraahaa waa laga fiican yahay inuu heeso marka waa ku daalay raadiskaagi way qalbigii ku raaca raysan wayay awga iga daarogashada taasaan xoogaa yar taasad ugu alleelehe waa sax Maryan haddii ay idinku luuqaysay mar haddii taanu ka dalbanay ay maxaa dhahdaayay ku luuqayn weyday bedelkeedii bay idin siisay idinkuna Maryan maadaaba codkeedii idin qashisay wixii kasta oo ay maxaa dhahday idin qaado inaad ku qanacdanayaan rajaynayna waxyaalaha iga naxiya waxa weey gabdhaha yar yarka oo qaaqaawano naasaha ruuxayo oo aan xishoonaynin markii heesayaan ka sheekeynaya waxyaalihii sariirta iyo wax saas ka sheekeynaya oo waxyaalahaas markaan arko ayaa runtii igu naxdin badan maxaa yeelay annagu markaan wax sheegayno haddaan gabdhanahay wax adigu aad u malaysid xataa ninku markii aad u sheegaysid u qaato mar inaad uga sheekeynaysid inaad jeceshahay mar inuu u qaato inaad neceb tahay laakiin wax banaanka yaallo oo iska yaal banaanka ma aysan sheegi jirin gabdhuhu marka waxyaalaha aan ka naxo markaan arko gabar ama heesaysa ama gabar nin la sheekaysanayso waxyaalo qalad ku wada hadlayso oo ninkii cararayuu leeyahay naagtan waaba waalantaan u malaynaya markaan arko waxyaalahaas ay igu naxdin badan maxaa jira gabadhu waa cawro inay is asturto inaa maxaa la yiraahaa waxyaalo wanaagsan ay ku hadashiyaa loo baahan yahay laakiin gabar sida ragga oo kale wax walba banaanka la soo taagan waxyaalaha igu naxdinta badan la weeyay runtii haddaynu taalka kaga nimaadno Maryan maxaad jeceshahay inaad mar walba aragto markaad labada indhood kala qaado ama aad soconayso ama shaqooyinkaaga caadiga aad iskaga jirto nolol maalmeedkaaga caadiga iska wadato ama aad soo kacdo sii seexanayso mar kasta maxaad jeceshahay inaad aragto oo labada indhood saarto caruurtaada maasha Allah wax loo dhigaaba ma jiro wax ka sareeyaan wax Ilaahay deebixiyo wax ugu qaalisan yar iyo weyn inaan ku farxo
isoo ag fariistaan oo hooyo iska waran markay dhaanba qalbigu maartay risi noqonaya ma sha Allah markaad soo gasho meelaha hoteelada laga cunteeyo waxyaabaha meelaha maxaa dhacday kulli fanaanad caana baa tahay meelahaas oo kale markaad gasho ma jirta cunto la oranaya Maryam baa timi cuntadeedii loo diyaariyo macna cunto gaar ah ku jeceshahay waxaan jecelahay cunada maxaa la yiraahdaa hilibka dhaylada ah oo waliba meelaha maxaa la yiraahdaa Yemenka laga sameeyo ay bacda ku duubaan iyo maxaa la yiraahdaa iyo fatamuus ayaan jecelahay waagi aan yaraa laakiin baastadan aad u jeclaan jiray baastada iyo hilibka oo foornaysan laakiin hadda maan gaboobay ma qaan waxay tahay waxaan jecelahay hilibka dhaylada ah iyo waxaan jecelahay fatamuuska oo maxaa la nimanka Yemenka ay sameeyaan baan jecelahay hadda Maryam si marka lagu eego waxa tahay hooyo qurux badan ma sha Allah jirkeedu macnaha dhalaalayo midab qurux badan leh anigoo aan ku arkin oo meelaha sun ka daawado ayaan waxaan oran jiray ama dadka Soomaalidu ay yiraahdaan Maryam waxay leedahay midab macnaha dabiici oo qurux badan oo soo jiidasho leh wala oran karaa malaha hilibka dhaylada aad cunayso waa laga yaabaa marka aan Yurub joogo laakiin ma cuno hilibkaas dhaylada qudaar baan cunaa marka waxa weeye waxa keenaya taas ilaahay intuu ku abuuray oo naag madow ka dhigay hadaa tiraahdeed ka waran ilaahay waxba ma taqaanide gaalada ayaa wax taqaan oo aad inta daawo soo qaadatid isku cadaysid ilaahay baa diiday ma ogta abuuristiisii iyo aqoonsanaantiisii marka ilaahay waa ka aarsanaya adigana waxa dhacaysa inaad kuleelka aad ka baqdido oo jirkaagii uu ka dhamaado maxaa la yiraahdaa difaaci oo dhan maxaa la yiraahdaa aniga waligay iyo Allah noloshayda anoo yar iyo anoo weyn isma marin daawo biyaha aan ku weesaysto wax dhaafsan wajigayga ma mariyo ilaahay abuursiisaan aaminsanahay midabkaana waa kaayagii Soomaaliga ah oo la dhihi jiray masciideedka marka waa la waayay hadda wadankiiba ka sii dhamaanaya marka intaan noolahay waxaan isleeyahay Soomaalida midabka ay u sii haysid midabkii Soomaalidu lahaan jiray meeye waa kan inaan iraha rabaa kii Soomaalidu lahaan jirtay hadda in yar baa hadda ka haysatay marka sidaas baan maaragtay anigu aan ilaahay aaminsanaantiisa ayaa ilaahay isaguna gacan isiinaya oo leeyahay naagtan yaan hadiiba gaboojin waa inaan aan tusnaa dadka ilaahay aaminsanaantiisu inay qaali tahay macnaha ilaahay baa marka isiiyay inaan wajigaygu wali iga doodoomin inaan daadi 70 wax yar iga dhiman yihiin inaan wali ordayo alxamdulillah rabbil ku faraxsanahay alla la indhaha iyaga noo macalino cid kasto maxana indhaha u furatayna way arkaysaa Maryam inay jir qurux badan midab qurux badan wajigeedu in yarna aanu isuumin ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxay ila tahay in riyaaba ila tahay inay Maryam mursal garabkayga fadhido daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha naga mudan oo barnaamijkii kaftanka Somali News oo idinkaga imanayay bartamaha magaalada Hargeysa iyo hoteelka ay Maryam degan tahay oo halkaasi Hotel Caron hotel Caron oo halkaasi kula kulanay waraysiga quruxda badan aan maxaa dhacday idin ka soo qaadno oo kula kulanay halkaasi oo idin kaga imanayay barnaamijka waxa mar walba idin daadiyay isla markaasna idin socodsiisay anigoo sagal guura sidoo kale waxa inoo duubayay oo sawirkan quruxda badan inoo qaadayay waxa weeyaan Suldaan iyo Yaxya Cabdirashiid oo iyaguna halkan inoogu sugnaa dhamaantiin iyo dhamaantay waxaan idin leenahay barnaamijku waa barnaamijkeeni sida iyo nabadgelyo ku soo dhawaada aad وكدالي راديسكاغي وي قلبي كراعا ريسا ويا يوغا إيغادا روغا شادا وكدالي راديسكاغي وي قلبي كراعا ريسا ويا يوغا إيغادا روغا شادا